wafdi uu hogaaminaya gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka Hirshabelle Siraaji Sheekh Isxaaq oo ay ka qayb ahaayeen xildhibaano iyo wasiirro iyo senataro ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta u gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Wafdigan ayaa waxaa ka mid ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Xildhibaan Cabdifataax Qaasim, wasiir dowlaha cadaaladda iyo garsoorka Yuusuf Xuseen Axmed Gamaadi, xildhibaano ka tirsan labada aqal ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo xubno ka mid ah labada gole ee Hirshabelle. waxaana garoonka diyaaradaha ee Beledweyne ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan labada gole ee maamulka Hirshabelle, maamulka gobolka Hiiraan iyo waliba mas'uuliyiin kale. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay oo hadallo soo dhaweyn ka jeediyay maamulka degmada Beledweyne ayagoona sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin inay mas'uuliyiintani kala qayb galaan xal u helidda colaado ka jiray maalmihii dambe deegaanada hoos yimaada magaalada Beledweyne. marta la jecel yahay tiin insha Allah biidnaa kariim soo dhawaado dalkiina ku soo dhawaado dadkiina ku soo dhawaado xoogaa shaqaaqa yar jirtay shaqaaqadaas insha Allah biidnaa kariim annana qayb gashay insha Allah waan rajaynaa. magaalada Beledweyne maalmahan waxa ka jira dagaal beeleedyo oo dhowr dhinac ah waa idinka mahadcelina xaqiiqdii inaad nagala soo qayb gashiin oo maaragtay culeysyada jira aad nala xalan doontiin maaragtay aan ku guuleysan doono waan rajaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo soo dhawaada mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad. dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga Xildhibaan Cabdifataax Qaasim iyo wasiir dowlaha wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka Yuusuf Xuseen Gamaadi ayaa ka warbixiyay socdaalkooda iyo waliba waxyaabaha ku saleysnaa. waa mid waxaan ugu baaqayaa labada dhinac xasuusinaya isla markaana Ilaaha iskiin baday waxaad tihiin dad walaalaah mar waxaad walaalo ku tihiin islaamnimada mar waxaad walaal ku tihiin Soomaalinimada mar waxaad walaal ku tihiin Hirshabelnimada mar waxaad walaal ku tihiin Hiiraannimada mar waxaad walaal ku tihiin reer Beledweynenimada marna dadka kale waa isaga sokeysaan oo xigaal iyo daris taariikh ahaan iyo deegaan ahaan ayaad isu xigtiin waa ayaan dara marka annagoo intaas dhaxal haysana maanta inay xabad dhacdo waa wax runtii aad looga xumaado iyadoo wiliba bilihii xurmada lahaa waxa weeyaan lagu jiro bil Ramadaan ay tahay marka inta ka badan ma lumin karno wiil kale oo waxa weeye macna dara ku dhinta ujeedkan u nimid waxa weeyaan dhibkan taagan iyo colaadahan gobolkan maanta yaani ka socda nolosheega waliba meelaha hor leh hataa inay ka jiraan waa ayaan daro qarniga 20-aad marayna dunida aan maanta ku noolnahay waxay ka tagtay wadan inay dawlad u ahaato qaarad ayaa loo socdaa waxa lagu xisaabtamayana waa dad iyo wadajir iyo midnimo qof kastoo dunidan ku noolna maalmo kooban ayuu joogayaa dadka muslimiintana mas'uuliyad gaar ah qof kastaba saaran marka waa ayaan daro marka magaaladii qadiimka ahayd ee taariikhiga ahayd waxa maanta halkaan dhigay oon aaminsanahay magaalooyin ka dambeeyay 100 sano inay ka dambayso runtii nolol ahaan iyo muuqaal ahaanba waxa weeyaan waa kala qoqobnaanta iyo kala irdhaynta iyo waxyaabaha maalin kasta taagan aawadood runtii sharafay noo tahay inaan soo gaarno magaalada Beledweyne caasimadda gobolka Hiiraan annagoo wafdigaas heer state iyo heer federaal isugu jirno ulajeedka ama hadafka safarkeenana uu yahay shaqaaqooyinkii iyo dagaaladii ayaan darrada ahaa ee foolxumada ahaa ee magaalada Beledweyne maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay dhaxmaray dad walaalo ah ehel ah xigta ah xigaala ah arrinkaas ayaan damqashadiisa darteeda ayaan u soo dhaqaaqnay waxaan rajaynaynaa juhdigii iyo dadaalkii horay u jiray maamulka gobolka iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda goboleedka Hirshabelle iyo xildhibaanada Hirshabelle iyo maamulka gobolka Hiiraan ay horay u wadeen ayaan rabnaa inaan beerino xoojino muxuu ahaayay talada la qaybsano garab istaagno wixii dhinayna aan la dhameystirno wixii muxuu ahaayay dhibaato ah jirayna aan wada xallino ulajeedka safarkeena waa sida Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nagu garab galo waxaan u soconno waa
maslaxa iyo sulux bayna naas aan u soconnaa wasulxu wafdigan ayaa Beledweyne u soo aaday xal u helidda colaado maalmihii dambe ka taagnaa deegaano hoos yimaada magaaladaasi Beledweyne ayadoona la filayo in saacadaha soo socda ay arrintaasi galaan waa Mahad Bashiir Ismaan Mahad xilif telefishinka caalamiga ee Sooyaal Cabdo